السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا مركلة إيا channel كيني توسين تجرادك إيا برشاد حكمتا إيا ولا شيني اسمها قليف علي أو مركلة إذين سيدا وحتا يلي أو قلبدا أورون وحتا يلي أو قلبدا أورون وحكا بدلي كرا وهرمركو قاري كرتيد ما شاء الله قول أدوني اللي بان أقرأ أيا عشركا هالكان كبحايا وبدنا كسابسين هاي ما شاء الله كتركوتين إي وحن هالكان كمسو داي وما شاء الله كسو دوادا مركلة ولا شيء اسمها قليب علي أو إذن له بلانتين ووناك بلانتين ووناك بلانتين ووناك إحمان تقول السلام عليكم ما إذن له هاي مركلة كسو دوادا وحايدين كدلبانيا إن سبسكرايب لهذا لايك أند شير لهذا ما شاء الله خير يا هالكان كبحايا خير كان ولا فافيا ما شاء الله وحايدين كدلبانيا كله إن أكومنت وحي أقدم هوس كسو قرتين سدوا ولا شيء إي ولا كي قالي هو إن شاء الله مركلة وحايدين ليهاي إن إديكو كسو دو وحايدين كذا قليا ما أنت اسمها قليف محيدين سدا ما أنت وحايدين سدا عوضة أما ما أنت هبين أما مالين قفكو وحسو قاربو ما أنت أما عوضة وحا 10 كيلو كساب سنية يا واخترك قلبك dhakhtarka qalbiga ayaan ku soconaynaa dhakhtarka qalbiga maxaa yeelay aad ayuu bulshadeena muhiim ugu yahay inaan dhakhtar qalbada u helnaa ismaa qaliib oo idiin matalaysa dhakhtarka qalbiga cashirada wanaagsan ee qalbada ku saabsan ayaa halkan idinkaga soo gudbinayaa qofkii ilaahay u asiibsiyaa ku dhaqmaa maasha allah laakiin waxaa idin leeyahay ku dadaala qalbada maxaa yeelay qalbada janaa lagu galaa adduunka nimcooyinka adduunka ugu waaweyn oo qof ilaahay siiyaa waa qalbi nadiif ah وقلب نظيف آخره إلهي هرتي سمركو سو استاغان جانو كلايا أدون كانوا حكوها لها نبتقليو ما ولا عيسيد ما ولا يسيد ما ولا يسيد ما دباتونيس وحكو قد عمك ولا عيسيد قلب هذا نبتقليا انجليسيا ما كفي كريسيد وحكو إيمان دون رزق خالي ما كفي كريس وأقلاني سا وحي كوي ما قاعدين دب ديارة تطهر حيا الإله اسكو دبتي وحي قد عينك كمان مرقيتي واتكتغيسا sidaasana laga rabaa allaha nasiiyo anagana allaha nasiiyo waan dhahay idima dhahaayo maasha allah waxaan rajeynaynaa inuu ilaahay naga dhigo kuwo wixii tagayna aan la murugoon waxa soo socdana aan ka wadaacin wixii kugu dhacay wixii dhacay wax qadaran ayuu ahaa adoo maanta qof muslime wixii kugu dhacay abaayo iyo aboowe ha ka walaacina iska taga laakiin waxa soo socda sayaalaysa waa dadaalaysa laakiin kama walaacaysid iyada wax walba wixii qadaran ayaa dhici doono wax anaga aan sabab u nahay ma aha ilaahay anaga oo xab ibiye ilaahay ayaa noo qadaray ma sha Allah waxa idin gudagala maanta cashirkan wuxuu ku saabsan yahay dhakhtarka qalbiga wuxuuna ku socdaa dhammaan Soomaali oo dhan shakhsi ma aha dhammaan gabi ahaan Soomaali ayuu ku socdaa kan waxa waaye cashirkan wuxuu ku saabsan yahay qabiil ayaa qarankii dumiyay kadibna qoyska waa dumiyay idinka waxa ogaada qalbada wax caadi ahayn oo nugul oo qafiif oo qurux badan oo qaali ah diamond oo qaali ah oo qurux badan oo nadiif ah oo la ilaaliyo waaye qalbada qofka nafsadiisa wuxuu cunayaa waxa ka weyn qalbadiisa walaalyaal taas ogaada qalbada ka weyn qofka muslimka ah waa qalbadiisa inuu nadiif ka dhigaa oo sida diamantiga qafiifka ah oo quruxda badan oo qaaliga ah oo storage-ka lagu xareeyo aan la xiran oo dadka lacagta la haystaan oo markaas u taabatay tirtirayaan no waa taabatay wala dhac ka darnaana laga rabaa ma ku meteli karo muraayad bis muraayada waxay wasaqay waayay la taala arkaamaho walagu matali karaa muraayad laakiin aniga qalbada muraayad way igala weyn tahay maxaa yeelay qalbada waa wax ajana ku galaysid oo adduunkana ku raaxaysanaysid qalbadaada oo nadiifisa adduunka ku raaxaysanaysa marka Soomaaliya walaalahay qaaliga oo dhan qabiil ayaa qarankii dumiyay qarankii Soomaaliyeed qabiil ayaa dumiyay kadibna muxuu sameeyay markuu qabiilkii qarankii naga dumiyay maxaa nagu dhacay qoys ahaan loo burbur qabiilkii qaranka wuu dumiyay walaalayaal anagu ilaahay ka cabsanayno qabiilkii wuu bilaabmay qarankii wuu dumiyay kadibna qabiil isku xiran ma la arka
qabiil isku xiran oo isa support gareynayo oo si fiican isugu xiran ma la arkin ma la arkin aad iyo aad ayay u yar tahay ay lama ahaba inay jirto aad iyo aad qabiilkii waa lasii kala baxay qabiilkii weynaa wuu sii kala baxay qabiil kaluu sii noqday qabiilkii kale qabiil kaluu sii noqday qabiilka kale qabiil kaluu sii noqday ilaa qoysaa la gaaray waa la kala firdhismay saasaa loo kala firdhay qoyskii aa kala burburay marka waxa keenay aa idiin sharxaya wax yar waxaa ilaahay ka rajeynayaa inuu waxa khayrka ah carabkayga u waafajiyaa oo wax fidna ee wax xun ilaahay carabkayga kasoo saarin ayaa ilaahay ka baryaya aniga sheeqadmiyey intii ilaahay fahansiiyey ayaa idinla wadaagaya marka qabiilka markuu qarankii naga soo duminayo maxaa qalbadeena ku dhacay qalbada way naga halawda way wasaqowday waxa ku dhacay wasaq qof kastoo Soomaaliyeed ilaa waa qof ilaahay u naxariista mehe gidigeena qabiilkuuna wada taabtay boqolkiiba ilaa ilmihii Yurub iyo Ameerika ku dhashay oo cadaankii iyo Ameerikaankii iyo madowga iyo carabta iyo dad kastoo inta isugu tagay la dhaqmaayeen waxaa lagu dhahay Soomaali waayo qofkaas qabiilkiisu yiri وعلى الحمو Soomaali waa Soomaali kala qaad ma leh ayaa wanaagsan maxaa yeelay markuu qabiilkina kala qaaday qabiilkii wuuna kala qaaday qarankii naga soo dumiyay wuuna kala qaaday kadib meeshii ma noogu ekeeyay wasaqdi qalbada gaartay may wasaqdi qalbada naga gaartay way socotay qabiiladii si kala saartay qabiil kasto si kala go'ay qabiil kasto boqol u kala go'ay qabiilkii kasto markuu boqol u kala go'o mid walbana uu si kala go'ay ilaa qoysa dunni qof marka oo aaminsan qabiil qalbadiisa nadiif ma tahay boqolkiiba waxaa u maleynaa 99 Soomaalida garanay ani ma rabo inaan dambaabo percentage-kaas inaan sheego ma rabo waa wax weyn oo dambi ku gali karo laakiin percentage badan ayaa qabiilka aad u aaminsan laakiin waxaa rajeynayaa inay aad u yaraadaan mar dhow maxaa yeelay markii uu soo marabno inuu guryaheena wanaagsanaadaan soo marabno guryahaaga naag walbo iyo nin walbo ama qof kastoo dumar ah iyo nin walbo raga soo marabo ilmihiisa iyo gurigiisa iyo wixiisa inay wanaagsanaadaan meeshaan ka fiiriya marka haddaa rabtid gurigaaga inuu wanaagsanaado maxaa ku diiday qaran ahaan in loo dhisnaado oo qabiilka loo wadaa waa fashilmane ma jira qof rabo boqortooyadiisaan yar ee gurigiisaan yar inuu wanaagsanaado dusha sarane inay hagaagsanaanin rabo ka war ma dhici kartaa qalbadiisa nadiif ma tahay may walaalayaal ilaahay aan ka cabsano anigu sheeqad miyi markasta waa idinkugu celiyaa laakiin kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga maxamed calayhi salaatu wasalaam way ka soo arooreen dhibaatada qabiilka ee leedahay hal isku kala gartaa la dhahay qabiilka laakiin hal isku isticmaala lama dhihin waa ogeedeen siiradii nabiga qofkii akhriyay oo wax ka kasaaya Aws iyo Khasraj labadii qabiil ee reer Madiina ahaa markay isdagaali jireen markay diinta islaamka qaateen Aws iyo Khasraj waa aragteen Aws iyo Khasraj sida u walaalooween waxay noqdeen dad walaalo ah oo isku ehel ah isku tala oo ilaa ay gaaraan hantida wada qaybsadaan walaalayaal qof qaranka Soomaaliyeed dumiyay gurigiisa ma hagaaga walaalayaal marka waxa ka garataa meeshaas qaran ahaan markii loo dumay qoys ahaan loo dumayaa intee liga soo gaaraa wada leeynaha anaga dhan intee liga gaar maxaa ka qayb qaadanay anaga dhan fitno uu ilaahay raali ka ahayn ayaan ka qayb qaadanay fitnadaas oo ay tahay qabiil dad islaam ah meesha dad islaam ah oo Soomaali oo isku sinji oo isku af oo isku meel ka soo wada jeedo aan kala qaadnay marka qof Soomaali qof kale ka xigsatid xaqdiya sameysay xasintinimo iyo cadawtinimo alla qofkaas qabiilkaas uu yahay u riixday marka u riixday kaay sokeeye aan u haysatay ku hagaaga maya ma hagaaga dhiba kala kulmaysa marka sokeeye haddana xumaaday ilaa qoys loo dumay qoysaska Soomaaliyeed waa dunsan yihiin ma habaaraya ana mar rabo inay wada dunsanaadaan tirada intaasay dhantahay ma dhahay laakiin markii qaran ahaan u dumnay qoys ahaan u dumnay marka hadda sidee qaranka Soomaaliyeed marka loo dhisaa qaranka Soomaaliyeed sida loo dhisi karo kaliya waxa waaye waa inuu qofka Soomaaliga ah koow gurigiisa soo hagaajiya asay qalbadiisa hagaajiya kadib ilmihiisa u gudbiya xaaskiisa ilmihiisa naagta qofta dumarka ah ninkeeda dhahda waxaas waxan way ka qabiilka ka qotada ka harfisaadka kan isla laakiin guriga qurunsan Soomaali guri walba Soomaali haduu qurunsanaado qabiil yaalo iyo xiqdi iyo xasadnimo
marka biyaha la cabayo dadka lagu xanto marka cuntada la cunayo dadka la xanto dadka la xasdo qalbada qurunsan tahay qalbada dhiigaysa dhag ku hayso qalbada garacmanayso marka qof wanaagis arti jareynaysid u rabin walaalayaalo adna meel ma gaaraysid dadka wixii ilaahay u qadaro warta maraya qof kasta oo Soomaali ah iyo qof kasta adduunka ilaahay keenay wuxuu ilaahay u qadaro maraya qof wax ka bedeli kara male laakiin inta Soomaaliya qaran ina dhisana hadaa rabtaan qoys waa ina ka soo bilaabataa gurigana ka fiicnaata banaankana ka fiicnaata ma rabin karti gurigaaga inuu fiicnaato hadaa Soomaalinimada la tuuray oo Soomaalinimo ma raba dhahday kulanta ina hagaagis ilaahay si waajibka ka saaran Soomaalinimada maxay tahay dad muslim waa Soomaalida haddii Soomaalinimo kugu jirin oo Soomaalinimadaada baaba'do oo qofka Soomaaliga ah xasdiisid oo hagradaysid oo yeelaysid marka banaanka ka timaado dadka dhibaatadooda asoo aragti ku farxin ama aad ka sheekaysid ama aad aad Soomaaliya maxaa iga gala dhahdid adima hagaagi qof kasta isweydiiso ashaas qof Soomaaliya kasta oo isdhaho aniga hagaaga rabaa ina guul gaara rabaa ina hanti yeesha rabaa ina horumar gaara rabaa ina kan yeesha rabaa waxba yuusugin in uu horumar gaara maxaa yeelay danta guud ayaa ka weyn dantaada gaarka ah hadaa tirtan guud wax igama galin gurigaagana uu kala daadsamayaa tan Soomaalinimada waa in la hagaajiyaa oo naxasidnimo iyo qabiil iyo fasahaad kala faafinin wax xun oo lagu wala dhahaa Soomaalinimada la jirsiyaa oo ilaahay laga cabsadaa oo qabiilka qalbada laga saaraa oo la wanaagsanaada kadib qofkii qabiil iyo fasahaad iyo xumaan ku jirin gurigiisa hagaaga taswaay marka banaanka dadka nabadgelisid gurigaaga nabadgeliyo ka dhacaysa ma garanaysaa idin kugu sheego waa si xikmad leh waxaan idin sheegaa wax xikmad leh waa xikmad haddaarti ina adi shakhsi horumar gaara rabtid oo nabadgeliyo heshid rabtid oo wanaag gaartid rabtid horta qalbadaada nabadgeliyo geli oo iimaan ku sug oo dadka nabadgeli oo qaranka Soomaaliyeed ha duminin laakiin ina dhahdin maanta ina wax cunaan rabaa dadka kalena ee cunin aniga kali noolaado ya oo saas lagu socdo oo gurigeygana dhisnaado ilmahayga wanaagsanaadaan rabtaan qabiil iyo qurna qalbadaada ka bad dadka xasadaa dadka kala yeesha dhakhtarka qalbiga waa saas dhakhtarka qalbiga waxa halkan cashirkan ugu bixiyay inaad dawowno si aad u dawaawno marka dawo u helno oo waxa burburka nagu dhacay dawadiisa loo helaa waa ina dhakhtar la helaa dhakhtarkana waxa uu ku soo ismaha qalif dhakhtar idinta ilaa waxa ku soo gabagabeeyay dhakhtarka waa qalbada oo la nadiifiyaa walaalayaal qof kasta bal ha ka fikirbo arintaas sida ani u fahmeynay tahay aniga sidaas ila tahay waa soo baaray waa aqriyay waa ka fikiray maskaxdayda aad uga shaqeysiyay waxa fahmay Soomaali maanta qabiilka haday ka baxdo ilaan qabiilkii ayaa qaranka laga dumiyay kadibna qoyska dad qaran ahaan u dumay qoys ahaan munisnaanayo hadaa qaran ahaan u duntid qarankaaga dumo qoyskaaga ma dhisnaana may banaanka markuu ilmaha u baxo waxnu la kulmaa hadaa Afrika Soomaaliya ila Afrika dhanka soo wada baxno oo galbeed imaana xataa America iyo Europe imaana North America iyo Europe aan tagna ilmaheena waxay wataan Soomaalinimo haddii inta ku dhashaan xataa si kasta asalkooda waa Soomaali hata la leeyahay British Soomaaliya tahay Italian Soomaaliya la leeyahay American Soomaaliya la leeyahay markasta Soomaaliya loo raacsiinayo walaalayaal marka dantaada waxa ka weyn danta guud qaranka Soomaaliyeed inuu dhismaa qof walba dan ugu jirtaa gurigaaga inuu hagaaga daartid waa ina dadka kale wanaag la jeclaataa waa ina wanaagsanaataa waa ina qalbadaada nadiifisaa waa ina ilaahay ka cabsataa waa ina xaqa afkaaga ku sheegtaa waxa xunne iyo qabiilka iyo fasahaadka dadka dawladda inay dumiyaan rabaan iyo wax walba haleynayaan waxa la naga joog marka si cashirka gabagabadiisan soo gaarnay si aan qoys ahaan u dhisnaano maxaa laga rabaa ina qaran ahaan u soo dhismano qabiilka iyo waxa xun ka baxnaa marka qabiilka iyo waxa xun aan ka baxnaa ayaa waxaan gaaraynaa gurigeena wax fiican noqonaya laakiin gurigaaga ina fiicnaysid qalbadaadana qurunsan tahay oo ilmahaaga hadaa hagaajisid xataa si kasta qalbadaada hadaa u fiicnaysid xataa nadiif ka dhig qalbadaada ilmahaagana wanaaji markay banaanka u baxayaan joogo dadka ilmahooda kale oo soo fasahaadiyana joogan
way ku soo daaranayaan cudurka ilmahaas waxay leeyihiin cunuga maana qabiilkayga la weydiiyey wasaanaa la dhahay maxaa ahay ani hooyo heblow maa taha la dhahay heblow kan waay heblow wuu go-ayaa la dhahay heblow kan walaalahay waxaas micno la-aan waaye aan ka baxno ilaahay aan ka cabsano horumarka nafsadaada hadaa ratid qalbadaada waa inaad nadiifisid qalbadaada markaad nadiifisid ilaahay ka cabsatid islaamnimada dadka islaamka dhan waxaa lagu dhahay hal ahaa lagu dhahay intay joogtaa soomaalinimo waa la kala xigaa dadka walaalayaalo dhaxal la-aan yaa laysdhigin dhaxal la-aan yaa laysdhigin soomaaliya dhaxalkeeda yaa la burburinin wixii aan ka tagi lahayn oo ugu weyn adduunyada waa in wax wanaagsan lagaa dhaxlaa maaha guryaha adi ka tagtay guryaha dadka umaleeya guryaha ma dhaxalka soomaaliya in la dhaxlaa wax ka weyn male oo generationada soo socdaan laga dhaxlaan wixii loo diyaariyay ayaa la heli doonaa marka walaalayaalo dadku waa inay wadajir ahaadaan si qoys ahaanna u dhismano ilaa qaran ahaan waa in aan ilaahay uga cabsanaa qabiilka isticmaalkiisa iyo qalbada la haleynayo oo cudurada qalbada ku dhaca laga nadiifiyaa qalbadaada xasidninimada cadowtinimada xinka colaada oo la abuuraa isku dirka xiqdiga jaajuusnimada adiga everything wallahi subxaan allah lama koobi karo waxyaabahaas waa badan yihiin marka waxaa idinka dalbanaya walaalahii qaaliga oo halkan waxaa nooga soo baxaya janaalkeenii kheyrka ahaa balanteenuna waa wanaag balanteenu waa wanaag iyo xumaanta oo la reebaa walaasha waxay ku leedahay faafi kheyrka subscribe like and share wasalaamu calaykum waraxmatullahi